nasro macalin cabdi waa gabar aad u daayar xilligan waxay la daalaadhacaysaa xanuun aad u daran in ka badan muddo 5 sano ah ma ahan qof soco kara oo lixaadkeeda dhameystiran maadaama ay qeybaha hoose ee jirka ay ka tahay bareleysa waxa ay noo sheegtay in la geeyay cisbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya balse dhaqaatiirta ayaa ku wargeliyay in aan wadanka wax loogu qaban karin balse ay u baahan tahay caafimaad dibadda ma awoodaan reerka ee ka dhalatay inay geeyaan caafimaad dibadda waxayna la daalaadhacayaan maareynta noloshooda haddaba ummadda muslimiinta ayaa waxay si qiiro leh ugu dalbatay in caawinaad degdeg ah lala soo gaaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waxaan idin salaamayaa salaanta islaamka waxaan ahay gabar iska dhibaataysan oo xanuunsan muddo 5 sano ah ayaan xanuunsanahay waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ka rabaa inaan ka codsado inay gacan qabtaan ummadda Soomaaliyeed ilaahay dartiisa qof waxaan ahay muddo xanuunsan oo wax dalka looga qaban waayo marka waxaan rabaa dalka dibadiisa leedahay anigana ma ahan qof awoodo ma ahi waxaan u baahanahay in la gacan qabto ilaahay dartiisa la gacan qabto ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan waxaan ahay qof aan waxba awoodin aabihiisana qof waayeel uu yahay ilaahay ka sako waxaan wax ka sugayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay caawiyaan ayaan ka codsanayaa insha Allah doo Allah idmo dhinaca kale walaasha la dhalatay Nasro oo qiireysan ayaa ummadda muslimiinta idana ka dalbatay in la soo caawiyo walaasha Nasro taas oo xanuun muddo 5 sano ah la daalaadhacaysa waxaan muslimiinta ka codsanayaa inay gabadhaas ilaahay dartiis wax ugu qabtaan waxa adduunka maxaan ku raahdaa nolol soo saaray islaamka inay maxaan ku raahdaa isku naxariistaan ilaahay wuxuu yiri isu naxariisteen naxariisteen islaamka oo dhan waxa weeye ninkii ilaahay muslimka walaalkiis qofka walaalkiis garabkiisa ah buu ilaahay garabkiisa yahay marka walaalayaal gabadhaas walaashiina waxa la rabaa inaad maxaan ku raahdaa si oo dabacsan oo islaamnimo ku jirto inaad wax ugu qabataan lambarka laga heli karo waa furaha 295 furaha 295 ummadda Soomaaliyeed marka khayr Allah siiyo meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay gacan qabtaan fadlan ku soo caawi waxaad u awoodo telefoonka lambar ay kaga muuqanaya shaashada ogow maanta wixii aad baxsato ayaad biri heli doontaa deeq macni chino checkay sub TV Muqdisho.